sida ku cad warqad ka soo baxday wasaaradda warfaafinta ee dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda Soomaaliya waxaa guud ahaanba la bixiyay dhul ballaaran oo ka mid ahaa tiyaatarka qaranka kaas oo dhowaantan dayactir xooggan lagu sameeyey kuna yaala darbiga dambe ee xarunta tiyaatarka qaranka. xogtan ayaana waxay caddeynaysaa in dhulkan oo ka tirsan dhismaha tiyaatarka islamarkaasna ah meel bannaan oo kooban oo dadku iyo gawaaridu ay dhigan jireen marka ay yimaadaan xaruntan ayaa waxaa la sheegayaa in lagu wareejiyey ganacsato gooni ah. arrintan ayaana la sheegayaa in si goosa ay ugu kala wareegeen qayb ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo ganacsatadanba. warqadda ka soo baxday wasaaradda islamarkaasna ku saxiixnaa wasiirka wasaaraddaasi ee warfaafinta Cusmaan Dube ayaa lagu sheegay in dhulkaasi la bixiyey islamarkaasna laga samayn doono maqaayad iyo goobo kale sida ku cad warqadda. lamana oga heshiiskan inuu yahay mid sax ah iyo mid si hoose ay u kala wareegayaan wasiirka iyo weliba ganacsatada. warqadda heshiiska kuma cadda muddada cayimanaadse yeeshee waxaa ku qoran in dhulkaasi lagu wareejiyey shirkadda Xawataako iyo in laga furan doono maqaayado casri ah oo meeshaasi ay ka howlgeli doonaan. xubnaha ka mid ah bahda fanka iyo wasaaradda warfaafinta ayaa waxay warbaahinta waxay u sheegeen in kumanaan lacag ah lagu badashay dhulkan islamarkaasna ay tani qayb ka tahay dhulboob muddooyinkan baa ka socday muqdisho oo ku soo beegmaya xaaladda kala guurka ah ee dalka oo waqti xaadirkan aanu jirin wax dabagala. inta badan dhulkan boobkan ayaa waxaa looga faa'iidaysanayaa shakhsiyaadka siyaasad ahaan ku xiran madaxweynaha ama ehel la amana cadda inta uu leegyahay dhulka ay bixisay dowladda ee lacagta ay ku qaadatay ee ganacsatada sida goonida ugu qaateen. farmaajo ayaa horay jaadka Itoobiya ugu xiray xubno ka tirsan qoyskiisa markii ay mamnuucday midda Kenya si lacagta ka soo xarooto lagula galo oraha doorashada, waxaana arrintan ka qayliyey ganacsatada Soomaaliyeed ee qaadka ka keeni jiray gudaha dalkaasi ee Kenya. warqadda ayaa waxaa la yiri wadatashi aan la yeeshay madaxda wasaaradda ayaa waxaan ku wargelinaynaa in shirkadda Xawataako ee wasaaraddu ogolaatay inay dib ugu lahabeen iyo dhismooyinba ku samayn karto dhulka dambe ee xarunta tiyaatarka qaranka halkaas oo la isla gartay inay ku habboon tahay baa la yidhi maqaayadda casri ah si madaxda dowladdu u helaan meel amnigoodu sugan yahay islamarkaasna ay ka helaan shacabkii iyo howlwadeennada dowladdu adeegyo casri ah oo meel qurux badan oo ku nastaan. waxaa sidaa daraaddeed ayaa lagu yidhi qoraalka mas-uuliyiinta warqaddan sida tooska ugu socoto farayaa baalyiri inay guda galaan dhamaystirka iyo fududeynta heshiiska shirkadda wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska iyo Xawataako hotel iyadoo qaabka iyo shuruudaha wada shaqayntan lagu heshiinayo shirkadda lagu qori doono warqadda isfahamka ee MOU-ga taasoo si cad lagu qeexi doono waqtiga qiimaha kirada dhulka waajibaadka labada daraf ee heshiiska wada gelaya. warqaddan ayaana waxaa lagu lifaaqay baalyiri maareeyaha golaha murtida wacyigelinta shirkadda Xawataako, wasaaradda ku-xigeenka agaasimaha guud iyo weliba sidoo kale agaasimayaasha iyo agaasimo ku-xigeenada guud ahaanba wasaaraddan ayaana sheegtay in arrintu ay tahay bay yidhaahdeen mid looga faa'iidaysanayo waqti xaadirkan arrimaha ku gidaaman ee dhanka tiyaatarka ee qaranka. dhanka kalena golaha wasiirada maamul goboleedka galmudug ayaa waxaa muddo 7 bilaa ka maqan mushaaraadkooda sida xubno ka tirsan oo codsaday inaan magacaabin ay noo sheegeen xilli maamulkaasi wajahayo dhaqaale baasan oo weyn oo la doorashada ugu guda jiro. golaha wasiiradan ayaa waxay mushaar ay qaataan waxaa ugu dambeysay bishii koowaad ee sanadkan ee 2021 waxaana jira baa layidhi qayladhaan fara badan oo ay wadaan baa layidhi guud ahaanba wasiiradani. ma cadda sababta aan u helin la'nahay mushaarkaasi yeeshee markaan waxaan joognaa xaalad adag ayuu u sheegay mid ka mid ah wasiiradan warbaahinta ogaal media. xiriiro aanu la sameynay madaxtooyada galmudug ayaa ku ogaanay in maamulku uu wajahayo lacag la'aan fara badan kadib markii ay waayeen lacagihii kabka ah ee loo mursin jiray dowladda dhexe ee federaalka maadaama waqti xaadirkan aysan jirin dowladdu wax dhaqaalaha ay ka hesho beesha caalamka oo si toosa ugu kabi karto dowladda goboleedyada xubnaha ka
qoorqoor ayaa sidan aanu xogta ku helnay waxaa lacago malaayiin dollar oo u ballanqaaday villa Soomaaliya loogu xiray inuu fuliyo qorshaha madaxtooyada doorashada xildhibaanada si lacagtaasi loo siiyo ilaa haddana ma jirto wax lacag ah oo loo fasaxay dhanka villada ee qoorqoor. waxa uu horay doorashadii aqalka sare ugu soo saaray dhowr xildhibaan oo ay wadatay madaxtooyada balse weli lama siin lacagtii loo ballanqaaday mana cadda waxa uu samayn doono haddii la siin marka uu ballanta dhankiisa uu ka soo baxo. wasiirada galmudug ayaana lagu leeyahay lacago fara badan oo deyn ah sidaanu xogta ku helayno waxaana qaarkood ay taagan yihiin inay iska iibiyaan gawaaridooda ay wataan heer ay joogaan inaysan wax lacaga haysanin. waxaana galmudug ayaana waxay ku soo biirtay maamulada maareynla mushaarada shaqaalahooda gaar ahaan xubnaha ugu sareeya maamulka sida wasiirada iyo baarlamaanka oo waqti xaadirkan iyagu wajahaya culeysyo fara badan. maamulada kale ee Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa ka mid ah kuwa sida aadka iyagu saameyn xoogan ugu yeelato arrinta dhaqaale la'aanta ee mushaaraadka qaybo ka mid ah wasiirada iyo xildhibaanada iyo shaqaalaha hoos ee maamuladooda taasoo yaalan la sheegaya in waqti xaadirkan sidoo kale galmudug iyaduna ay ku soo biirtay liiska maamuladan iyagu maareynla. labada maamul ee Jubbaland iyo Puntland ayaa la sheegaynayeen kuwa kaliya ay maareeya marka ay timaado bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo qaar ka mid ah wasiiradooda iyo weliba xildhibaanadooda.